Munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay wixii ka soo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb 3 ayaa xalay lagu qabtay fagaaraha shirka ee magaalada Dhuusamareeb. Munaasabadan waxaa soo agaasimay maamulka caasimadda iyadoo ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, gudoomiyaha golaha wakiilada Mudane Maxamed Nuur Gacal, xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha Galmudug oo munaasabada ka jeediyay khudbad ayaa sheegay in Galmudug ay ku guul gaartay shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay ka soo baxeen qodobo ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka. Qorqor ayaa sidoo kale tilmaamay in Galmudug ay qaadi doonto howlgallo waaweyn oo Al-shabaab looga saarayo degmooyinka ay weli gacanta ku hayaan ee ku yaala Galmudug iyo Galgaduud. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowladda iyo shacabweynaha reer Galmudug meel ay joogaanba. waxaan rabaa in halkan runtii aan ka xuso caaway shirarkii taariikhiga ahaa ee lagu qabtay caasimadda Galmudug oo Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3 ku soo dhamaaday. inaan idhaahdo reer Galmudug meel aad joogtaanba waan idinkaga mahadcelinaynaa sidaad u qayb qaadateen. gudoomiyaha baarlamaanka caawanka la jooga, madaxweyne ku-xigeenka oo naga maqan, gudoonka baarlamaanka, golaha wasiirada baarlamaanka, odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta, dhalinyaradii. waxaan hilmaamay halkaan runtii aad iyo aad aan ka xusaa si gaara mudan maamulka caasimadda oo iyagoo hogaaminaya shacabweynihii caasimadda martiqaad sharaf leh, soo dhaweyn sharfan ku soo dhaweeyay martidii ama walaalihii Soomaaliyeed madaxdii qaranka ee halkaas ugu timid. waxay ahayd soo dhaweyn aan loo kala harin, soo dhaweyn aan reer Galmudug waxba la harin. dadaalkii ugu dambeeyay la baxshay aan leenahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa waadin xasuustaan reer Galmudugow doorkii aad cadgeysateen iyo sharaftii aad ka samayseen Galmudug guud ahaan gaar ahaan caasimadda. waxaan rabaa in halkaan sidoo kale ka xuso ciidamadii amniga oo habeen iyo maalin u taagnaa nabadgelyada iyo amniga sugayay oo qoraxda iyo qabowga aan ka hoyanayn oo intaa sugayay amniga madaxdii qaranka halkaas isugu timid ummadii Soomaaliyeed ku tashanaysay iyo reer Galmudugba. waxaad xaqiijiseen guul taariikhi ah, waxaad xaqiijiseen Soomaaliya albaabkii marka xilliga la joogo ugu qiimaha badnaa ama la sugayay oo ahaa qaab ama hanaan doorasho oo dalku doorasho ku galo 2020-2021. taasi waxay ku soo gabagabowday Dhuusamareeb 3 oo aad caawa gunaanadkeedii iyo mahadcelinteedii aan u xafladeynayno. dalku wuxuu yeeshay qaab doorasho, wuxuu yeeshay doorasho runtii muddo un cakirneed. waxaad samayseen dadaalkiinnii ugu dambeeyey waxaana ka soo baxay miraha Soomaali u aayayso maanta caawa. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo madaxdii qaranka, madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya, madaxdii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee ka soo qayb galay shirkii meesha ku dhamaaday oo guusha ku dhamaaday iyagoo u sameeyay runtii aan hubo inay sabar, dulqaad iyo mas'uuliyad u muujiyeen ummadda Soomaaliyeed reer Galmudugna ay taxgeliyeen. kale waxaan rabaa inaan idhaahdo reer Galmudugow meel aad joogtaanba waxaad muujiseen magacii iyo maamuuskii iyo kartidii hufnaantii ladinku yaqaanay oo Soomaali dhexdeeda ku lahaydeen baa la soo baxdeen waana ku guulaysateen.